Assalaamu calaykum kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya waa maalinimo Arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bishii koowaad sanada 2020 waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan gabadha Soomaaliyeed ee ka tirsan golaha Koongareeska Mareykanka xildhibaanad Ilhaan Cumar oo si aad ah u taageertay sharciga cusub ee laga diiwaan geliyay qayb kamid ah dalka Ireland kaas oo ogolaanaya ama sharci ka dhigaya in dadka isku jinsiga ah ay isguursan karaan balse intaan u guda galin faahfaahinta warkan hadii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe sar adigoo furanay gambaleelka si ay dhiirigelin noogu noqoto aadna u heshaan wararkeena iyo macluumaadkeena ugu dambeeyay xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa si aad ah u soo dhaweysay inay qayb kamid ah Ireland laga sharciyeeyay in dadka isku jinsiga ah ay isguursan karaan si aad ah ayaan ugu faraxsanahay una soo dhaweynayaa in waqooyiga Ireland laga ogolaaday sinaanta dadka isku jinsiga ah ayay Ilhaan ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka Ilhaan Cumar ayaa horeyba si aad ah ugu ololeynaysay in gudaha Mareykanka laga dhaqan geliyo sharci ogolaanaya in dadka isku jinsiga ah ay isguursan karaan sidoo kale sida laga arki karo qoraalka ay ku taageertay sharciga cusub ee waqooyiga Ireland waxay Ilhaan si daba dhigtay in ay dadaal xoogan ku bixin doonto sidii golaha sanadka Mareykanka looga dhaqan gelin lahaa sharci ogolaanaya in dadka isku jinsiga ah ay isguursan karaan Soomaalida ku nool dalka Mareykanka iyo dibadda iyo sidoo kale jaaliyada muslimiinta ee Mareykanka ayaa si aad ah u cambaareeyay talaabada ay Ilhaan ugu ololeysay dadka isku jinsiga ah qaar kamid ah Soomaalida Minnesota oo ah halka laga soo doorto ayaa ku goodiyay in ay doorashada soo socota aysan mar kale codkooda siin doonin Ilhaan maadaama ay u bareertay wax ay xitaa kuwa aan muslimiinta ahayn ka yaqiiqsadeen oo ah taageerida dadka isku jinsiga ah sidoo kale Ilhaan ayaa Twitterkeeda ku soo qortay xuquuqda dadka isku jinsiga ah waa qayb kamid ah xuquuqda aadanaha waxaana waajib nagu ah inaan ku dadaalno sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda marka laga soo tago Soomaalida u codeysay iyo jaaliyada muslimiinta Minnesota ee muslimnimada codkooda u siiyay waxaa jirtay in codka ugu badan ay ka heshay Ilhaan ururka loo soo gaabiyo LGBTQ oo ah urur ay ku mideysan yihiin qaniisiinta ama laga roonayaasha sidaad u taqaaniin Ilhaan waxay marar badan si cad oo aan gambasho lahayn u sheegtay in ay u taagan tahay u doodida xuquuqda kuwa isku jinsiga ah sidoo kale waxay si xoogan dadaal ugu jirtaa in Mareykanka laga dhaqan geliyo sharci ogolaanaya in raggu isguursan karaan Soomaalida Mareykanka iyo jaaliyada muslimiinta oo markii hore ku taageeray inay tahay gabar muslim ah ayaa hadda u muuqda kuwa si aad ah ugu niyad jabsan ficiladeeda iyo inay taageertay wax aysan marnaba diinteena suuban ee Islaamka ogolaan ama xaraan ka tahay Ilhaan ayaa sidii ay ugu soo baxday kursiga Koongareeska Mareykanka deegaanka Minnesota waxay ka dhamaan laadahay taageerada qaniisiinta wax ka sheegida Israel iyo waxyaabo kale oo aan loo baahnayn halkii ay dadaal ku bixin lahayd wax ka qabashada dhibaatooyinka gudaha Mareykanka ku haysata Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ee codkooda u siiyay inay wax u qabato sidoo kale Ilhaan markii ay noqotay xubin ka tirsan Koongareeska Mareykanka muddo bilooyin ah ka yar waxay ku burburisay qoyskeeda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay xiriir la leedahay Tim Maynard oo ah nin cadaan ah oo aan muslim ahayn sidoo kale madax u ahaa kooxdii ololaheeda doorashada inta badan dadka ka soo falceliyay qoraalka ay Ilhaan soo dhigtay Twitterkeeda kuna taageertay guurka dadka isku jinsiga ah inta badan dadka ka soo falceliyay qoraalkeeda ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa si aad ah u cambaareeyay Ilhaan dadka ka soo falceliyay waxa kamid ah kuwa aan muslim ahayn waxayna weydiiyeen siday ku taageeri karto guurka dadka isku jinsiga ah iyadoo sheeganaysa inay tahay gabar muslimad ah sidoo kale nin cadaan ah oo magaciisu yahay Brad ayaa Ilhaan weydiiyay hadii ay dadka isku jinsiga ah isku guursan karaan masjidka dhexdiisa isagoo ula jeeday in diinteena Islaamka aysan ogoleen qaniisiinta mid kale ayaa u soo qoray sidan Ilhaanay waan ogahay waad kaftamaysaa maxaa yeelay diintaada ma ogola qaniisiinta ma ahan markii ugu horeysay ee ay Ilhaan taageerto dadka isku jinsiga ah waxay ahayd markii ugu horeysay 5tii May ee sanadkii hore markaas oo Minnesota ay kula dabaaldegtay urur u dhaqdhaqaaqa guurka dadka isku jinsiga ah waxaana la arkayay iyadoo hogsan calanka ay caanka ku yihiin qaniisiinta sidoo kalena la dabaaldegaysa